qofka markaasuu qofku qalbiga ka raaxaysanaya qalbigii baa hagaagay oo qalbigii muxuu ku hagaagay waa kalsoonida dhabta ilaahay macrifadiisa ilaahay jacayladiisa ilaahay cabsidiisa sifaadkaasi qalbiga markay galaan qalbiga jirkii wuxuu soo saaraya marka amal wanaagsan hadal wanaagsan maqal wanaagsan ficil wanaagsan amalkii markuu hagaagana adduunyada oo dhan baa ilaahay marka qofka bini'aadamka nolosha adduunka oo dhan baa loo hagaajinaya saddexdaas isku xidhan in nolosha adduunyadu hagaagto waxa uu shardiya amalka jirkaaga ka soo fulaya inuu hagaago amalka jirkaaga ka soo fulaya inuu hagaagana waxa uu shardiya in i'tiqaadka qalbigaagu inuu hagaago qalbigu inuu hagaaga i'tiqaadka ku jirana waxa uu shardiya dadaalkaagu inuu hagaago dadaal sadarteed baa ilaahay jalla wa ala 124 kun oo nabi oo 312 rasuul ay ahaayeen waxa ilaahay uu soo diray wax kale ma ahayn inay bini aadanka qalbigiisa ay hagaajiyaan bas qofka bini aadanka qalbigiisa muxuu ku hagaagayaa wuxuu ku hagaagayaa tawxiid iimaan billah وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أي إلهي بأشياء يو كله أدق هرتا إرقما نصودرا أدونكا إلا حتى الرسول صودر نبا إلهي يري ذاتك وحو الرسول كاسو يري إن الله كلي العبد بس عبادة إله ينبى الله يقوى وعلي وحا إلهي السكري داتك أي عابديان أي هايستان أي تلسارنيان أي النبيات داتك أي كبوينيين أي كريبيين أي كل هايين إلهي عابدو إلهي تلسارت مشاكل كان الدوية حلقي ومحي إلهي وصل نقو مشاكل كان الدوية إنا تكبح ذا مربتا إلهي عابد نولاشا الدوية دوني كوها قاك تمربتا إلهي رالك قلي راحينا تكون ولا تمربتا إلهي قرو إمام غزالي رحمة الله عليها يا أرنجري جنة الدويد وإلهي معرفة ديسا جنة آخرتنا وإلهي أركت ديسا جنة الدويد ومحي يا وإلهي معرفة ديسا جنة آخرتنا وإلهي أركت ديسا مركي أهل الجنة جنة أي قلام أي إلهي كو أرندنا تريدون شيئا أزيدكم شيء كلا أو إن قد من أو إن يقدر مجعشين إن نسيو مركز أهل الجنة ورنا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار إلهم يعني وجيال كي نو إفتيمن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه مالك وجيال كقارنا مدوبانا يقارنا عدانيين ميانا وجيال كي أدقوا أتكي لكوا إفتيما يأوعد عد ميانا الجنة هذه إله أن نقلين ميان نار تادين ماركتاني أن نقبت بادين ما انت وحكف اللي بدن بانوها لي مرقاس إلهي أورانا يا ها فيكشف الحجاب لأن مرقاس إلهي حجاب كسك قاضيا فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ورسولك يري أهل الجنة هل لمسين وحقوا قلوبك القعيلة بدنيا هاي دعوشد إلهي الداتة دي سيه وجهي سيه كمال كساي دعونا يا الله ينقل لك قواس جنة الدويد وإلهي معرفة ديسا جنة آخرتنا وإلهي عرفت ديسا ربانيين علماء الربانيين ديساسي ورنجرين مركا أنبياء عليهم الصلاة والتسليمات بشرية وحي قلت الماميين مالك لقلبيين وكو حصل مايو مالك لكو راحيسا ما يقلبيين قلبي وحا كلية ايد قوامحي إلهي معرفة ديسا كيكو أبو رقرو وحو أدوية كو كينو كو أبو رتين قرو أو إداس اللي كو أبو رقرو
walaa ilaaha ila allah waxuu ilaahay kuu abuurtu kaa doonayayna garo waa muxamedun rasuulullah sal alla alay slam calaa ariiqati rasuul ku caabud ilaah ilaahay baa ku keenay adduunka iskama dhiman adigu iskama dhimanay sida amar ilaahay baad ku dhiman amar ilaahay baad ku timiday amar ilaahay baad ku joogtaa amar ilaahay baad ku socotaa amar ilaahay baad ku seexanaysaa amar ilaahay baad ku soo kacaysaa amar ilaahay baad wax ku arkaysaa amar ilaahay baad wax ku maqlaysaa amar ilaahay baad waxtar ku leedahay amar ilaahayna waad ku dhimanaysaa sida khalqiga ilaahay jalla wacalaa cid la sheegatoo tidhaahda annakaa samaynay aynan u jirin ee gaal iyo muslimba ay qirayaan inuu ilaahay khaaliq yahay kadalika amarka adduunyada ku socdana ilaahay xaggiisu ka yimaadaa meel kale amarku kama yimaado amarka xaguu ka yimaadaa allah xaggiisa isbeddel baa adduunyada ka dhacay ilaahay baa keenay dad baa dhashay amarka ilaahay bay ku dhasheen dad baa dhintay amarka ilaahay bay ku dhinteen dad baa amni haysta ilaahay baa amniga ku deeqay dad baa colaad iyo cabsi lagu riday ilaahay baa u qadaray dad baa barwaaqaysan barwaaqada ilaahay baa u qadaray dad baa abaar haysataa abaarta ilaahay baa u qadaray nidaamkan caalamka ilaahay gacantiisu ku jiraayo gacan kale kuma jiro bal lilaahi alamru jamiica qul ina alamra kulluhu lilah biyadihi alkhayr biyadihi alkhayr khayr oo dhan gacanta allu ku jiraa gacan kale kuma jiro nidaamkan adduunkana gacanta ilaahay buu ku jiraa gacan kale kuma jiro isagaa babedilaya maalinta isagaa keena habeenka isagaa keena jiilaalka isagaa keena guga isagaa keena kuleylka isagaa keena qabowga isagaa keena daruurta roobka keenaysa isagaa keena barwaaqada isagaa keena waxa liya waxa adduunyada isbeddel ka dhacaya waa isagaa keenaya haddii la eegana isbeddelka wuxuu ku salaysan yahay bini aadanka camalkiisa ilaahay eegaya bini aadanka camalkiisa iyo lagu salaynaya haddii caalamkan dadka ku nool camal wanaagsan uu ka soo baxayo xaggooga oo ilaahay tabaaraka wa tacaala mar walba camal wanaagsan malaa'igtu ay u geynayaan adduunyadani waxay noqonaysaa janno ku sug bay noqonaysaa laakiin bini aadanka camalka ka soo fulaya hadduu camal xun u noqdo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu cadhoonaya deedna xagga samada cuquuba ka soo degaysa cuquubo laa taqacu almusiibatu ila bidanbin walaa tarfacu ila bitawba masiiba adduunyada kama dhacdo ilaa dembi la galabay ku timiday balaayo iyo masiibana ilaahay ummad kama qaadin ilaa toobaday toobad keeneen baa ilaahay masiibada kaga rafaca saa daraaddeed bay nebiyadu calayhim asalaatu watasliimaat waxay ku dadaalayeen bani aadankanay ku dadaaleen meesha bini aadanka ay kaga dadaaleenna waa qalbiga shayga qalbiga bini aadanka uu ku bogsadaana waa ilaahay macrifadiisa idan nebi kastoo adduunka yimiday wadiifadda uu la yimiday waa addacwatu ila allahi caza wajalla inuu nebi walba dadka ugu yeedho ilaahay xaggiisa waxa bini aadanku ay haystaan markaas ayuu nebi walba dadkiisa ka soo goynayey ilaahay buu ku soo xidhayay waalidu cimraan saxaabiga cimraan binu xuseyn la odhan jiray radia allahu canhuma ayaa duqi aabbihii ahaa intuunan islaamin ka hor ayaa qurayshay intay soo qaadeen bay u keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam oy leeyihiin adigaa oday weyna oo nebi maxamed aabbihiina awowgii cabdulmutalibna soo gaadheen bal inuu adiga tala kaa qaato dhibta naga daayo moxamed kaalay oo la hadal bay ku yidhaahdeen waa markuu nebigeennu maka uu ka soo baxay dacwaddu hariibka ahayd hariibka markaasaa nebigu saxaabadii ku yidhi soo dhaweeya odayga ii soo dhaweeya waa waalidu cimraan inankiisi waa saxaabi oo markaa nebigu la joogaa daartii arqam min alarqam miyuu markaa nebigu diinta saxaabada qur-aanka ku baraa
كي إسلام يانا مركا هالكابا لكينا يولغو إسلامية مركا سؤالك بها الله يريم يا محمد أنا عبد المطلب بانقرانا يا أبا ياشا بانقرانا يا لكن دباتة أدوك ما أنت قريش أبدح بكتي نين قريش يدو دباتة هرطان موكيني مجرته بكويري إلهي دان عابديني أيضا لقى عيبيس أبا ياشا يدو دنتي أهل النار باتكو الشاكتي دين تيدين وحاتري وحبك مجران باتري وضيدي قريش يدو عقلك بدنانا وحاتري وحبا من فهميان تاسا كبو هاي سنة مركب النبي عليه الصلاة والسلام سؤال بويدي وحكويري إن سيله بان عبودا عدوك بلي شيك مركز السديد بان عبودا حقيقة لجوغان ارتضبنا دول كي جوغان من نسمدو هي جوغا عد هدي أباري آي دعضو كبر إلي روبك كوكيني أبارتا كافي دواكي مركز الدواك السمدا هدي أديك دباتا كوكو دعضو كأكبر داي دباتا كافي دواكي markaas uu dawaaka samada raaxiladaadu daabadaadu haday ka lunto ka baride ku soo celiyo waakee markaas uu waa ka samada damarka dhibaata ay timaadana soo kama baridid ha marka barwaaqada roobku doo xooluhu dhalaan kuwanaan magacooga hilibka neefka magacooga aad ku qashaa magacooga aad ku gowracdaa markaas uu nabigu yidhi cibaadadaas man cadaalad fashay buu marka dhibaata ay jirtana ka samada baryaysa marka barwaaqada ay tahayna todobadii kala baryaysa oo caabudaysa oo magacooga xoolaha ku qalaysa oo magacooga sadaqada ku bixinaysa oo baahidaada u sheeganaysa oo ku farxaysa agtooda man cadaalad fashay markaas uu aabusay hadaba aniga dhageysadu nabigu kaleey salaatu wasalaam ya Husayn waxaan leeyahay dadkana ku leeyahay allaha dhibaatadu markay nagu timaado aad baryaysaan ee tala saaranaysaan ee u khushuucaysaan ee roobka weydiisanaysaan ee ducadii ee u bandhigaysaan ee ducada u baraxtiraysaan ka baan leeyahay marka dhibaatadana isaga keligii caabuda marka barwaaqadana keligii u caabuda marka dhibaatadana isaga u caabud cid kale ha caabudin cid kale ha rajayn cid kale ha tala saaran cid kale ha bariyin cid kale baahidada ha u sheegin مثل الذين اتخذوا من دون الله كمثل الأولياء اتخذت بيتا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون بإلهين وعلي وها إلهي السكدي هذا عبود إيسان إذ إلهي كدقتين إذ كبقنا إيسان إذ باهدين نوشيغن إيسان إذ بري إيسان إذ تلسارن إيسان بإلهين إليهي دقيست بشرية عالم كودن أي إلهي الله الله قرآنك هو كلامك إلهي قرآنك هو بيانك إلهي بيانك إلهي بشر ودقيسو وعلي وها إلهي كسكية إذ إلهي مود إيسان العبود إيسان وحبال العنكبوت وأقلك عارضه كالويا أقلك عارضه ضميننا كمعليو روبنا كمعليو إيش عدونا كمعليو والله أركا يدو نحفظنا يعني وحا إلهي غيرك لقد تعلق صيحي مانتا إلا بريايو إلا قبقنايو إلا تلسارنايو وحوبك عارضه ويحوبك عارضه تغلقلو والله الدكسدنا با إلهي يري وأغلق وقول لي تأغلقاس أغلق عارضه أغلق وقول لي تبا إلهي وعلي وحا إلهي كسوهرون ودن هذا تلسارتان وبردان وبايدين وشيغتان وتكعبستان وتكبقتان وحد كدغنتين حوب عارضد يري روب يا دبيل يا دحن يا عدعد كدغسنينا مكاعلن ما يكاعلن ما يري كامعلن برواقنا حتى تكون جرتنا إلهي كل شكري بلاي مصيبة حتى يتبادلها أرققحني إلهي بري عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام
ayaa yidhi ninka muuminka arrinkiisoo dhan waa arrin la yaab la weeyaan arrin kasta oo qofka muuminka la soo darsaa muuminku khayrun buu ka dheefaa muuminka unbaan arrimaha iska leh waa sidee nebi allow noo sheeg qofka muuminka iimaanka leh hadday dhibaata ay ku dhacdaan u adkaystaa u sabraa ajar iyo khayr baa loo qorayaa hadday barwaaqa iyo badhaadho uu la kulmana uu shukriyaa ayadana ajarun baa loo qoraa muuminku si walba waa macaash si walba waa macaash hadduu bukoodana uu macaashi hadduu gaajooda uu macaashi hadduu abaari ku dhacdo uu ka macaashi hadday colaadi la soo daristo uu ka macaashi haddii amni ilaahay siiyo uu ka macaashi haddii caafimaad la siiyo uu ka macaashi haddii caafimaadka laga naaquso uu ka macaashi hadday ubadku hagaagaan uu ka macaashi hadday ubadku ka baanaadaanna uu sabriyo uu ka macaashi mana qofka muuminku noloshiisa khasaare hadduu safar yahay qofka muuminku iyo hadduu xanuunsado buu rasuulku yidhi malaa'igta ilaahay ku yidhaahdaa addoonkayga markuu muqiimka ahaa iyo markuu caafimaad ka qabay camalkii uu qaban jiray waxbaha ka naqusina u qura baa ilaahay malaa'igta ku yidhahdaa marka ma khasaara may macaash ma argagaxa qofka muslimka Mucaad binu Jabal radia allahu canhu waxa uu ku dhintay fii taacuuni Amwaas fii khilaafati Cumar bn Khataab radia allahu canhu isaga iyo Abaa Cubayde Cumar wuxuu isku dayey inuu xanuunka taacuunka ka badbaadiyo waayo garab bay u haayeen waxay idhahdeen may meesha taacuunku ku dhacay ka bixi mayno nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi meelaad joogtaan hadduu xanuunkaasi uu ku dhaca buu nebigu yidhi ha ka bixina meelaad u socotaan haddaad maqashaan xanuunkaabaa ka jirana ha gelina buu rasuulku yidhi marka kama baxaya buu meeluu xanuunkaa taacuunku uu ka dhacay buu nebigu yidhi haddaad joogtaan ha ka bixina waayo haddaad ka baxdo oo ilaahay kaa badbaadiyo laga yaabaa inaad tidhaahdid bixiddaa ka soo baxay baa ku badbaaday ama maaragtaani xanuunkan adiga ku hayayna laga yaabaa ummad kale inuu gaadho xikmaddaa buu nebigu yidhi halkiina joogo qadarka ilaahay aamina qadarka ilaahay maa laga farxi karaa may lagama farxo yar fadhiisiya dee fadhiisiya soo dhow halkan fadhiiso bas ku salliya rasuulka Mucaad binu Jabal radia allahu canhu marka khudbadii buu fuulay jumcada inankiisii cabdiraxmaanna taacuunka ku dhaco uu jiifa waa sakaraad markaasuu khudbadii markuu khudbadaynayey ayuu yidhi alaa inahaa raxmatun min rabbikum wa dacwatu nabiyikum wa qabdatu saalixiina min qablikum allahuma adkhil aala mucaadin nasiiban min raxmatika buu ku duceeyey dadkii muslimiintii buu tarkiibiyey ha argagixina buu yidhi ha argagixina xanuunkan taacuunku waa raxmad ilaahay xagga rabbigiin iniiga timide weeyaan waman maata fi taacuuni fa huwa shahiid buu nebigu yidhi ninka taacuunka ku dhinta waa shahiid buu rasuulku yidhi markaasuu yidhi Mucaad binu Jabal xanuunkani waa raxmad rabbigiin xaggiisa ka ahaatay weeyaan waa ducadii nebigiina Muxamed calayhi salaatu wasalaam waa qabashadii dadkii saalixiinta inaga horreeyey markuu ilaahay adduunyada uu rabo inuu ka qabto xanuunkaasu u keenaa iyagoo sariirahooda dul jiifa ilaahay shahaado u qadaraa markaasuu ducaysto wuxuu yidhi ilaahu raxmaddan ala mucaad binu Jabal reerkiisa ilaahu raxmaddan soo geli buu yidhi khudbadii markuu ka dhaadhacay uu salaadii dadka tujiyey inankiisa cabdiraxmaan buu markaa u tegay oo sankaraada markaasuu u tegay isagoo naftu ay ka sii baxayso cabdiraxmaan wuxuu yidhi dhegayso yaa abati buu yidhi aabbo alxaqu min rabbika falaa takuunanna min almumtariin xaqu xagga rabbigaabuu ka ahaadee kuwa ilaahay amarkiisa ka shikisan ha noqon buu ka yidhi Mucaad binu Jabalna wuxuu yidhi satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin kanna aayaddan uu isku akhrinayaa kana aayabihii buu aayaddan ku akhrinayaa cabdiraxmaan ayaa dhintay
maalma kadibna aabihii Mucaad ibn Jabal baa ka daba tegay mu'minku dhimashada muu ka baqa armuu ka baqa kama baqo mu'minku ilaahay qeyrkii kama baqo mu'minku kaliya wuxuu ka baqa mu'minku macsiyadu ka baqa lana macsiyada ilaahay caradiisa baa ku dhex jirta saxaabadu kamay baqayn xanuun makhluuqna kamay baqayn cadowna kamay baqayn gaajana kamay baqayn faqriya faaqana kamay baqayn abaarna kamay baqayn waxa kaliya ka baqayeen waa macsiyo ka baqayeen nin saxaabiya ayaa waqti dhahira magaalada Makka magaalada Madiina xilli dhahiro dhulku kulul yahay ayuu magaalada soo dhaxmaro inay yar oo qurux badan buu arko markaas oo qarsado iska dhunkaday wax kale kuma sameeynin markuu uu ka dhaqaaqo sii daayayna uu seexan waayo ninkii dambiga uu sameeyay waa dhunkasho kaliya markaa uu yimid rasuulka ya rasuulallah iman yar baan dariiqa ku qabto waa dhunkaday wax kalena kuma sameeyna Allah igu oge ee xadka aniga halay mariyo markaa uu nabigu aamusay la shariicadu markaa kaamil ma ahayn kolba in baa shariicada soo dhageysay kolba inta ummadu ay iimaankeedu ziyaado ayaa ahkaamtii shariicaduna ay soo dhageysay markaas uu nabigu aamusay wuxuu yiri fadhi waa sugaynaa xukunka ilaahay markaas ilaahay soo dejiyay aayadda quraanka waaqimis salata tarafay an-nahar wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin salada shanta waqti oogaba ilaahay yiri gafafka yaray niga dhacay khayrka aad samayseen ee salawaadka aad ka helaysaan salaadaha khayrka aad ka helaysaan baa ilaahay ku kaxaya oo ku masaxay markaa abu saxaabigi baa yiri ali hada ya rasuulallah markaas nabigu warninkii away hebel waa kan aayadii nabigu markaa baro ku akhriyay ali hada aadan imaani kaliya ii soo degtay markaas uu yiri may ummadeedo dhan baa aad ku soo degtay buu rasuulku yiri dambigay ka baqayeen asxaab inagu maanta dadka zamankan jooga afcaashi ilaahay ka xaraysiinaysay ka baqi mayno laakiin waxa ka baqayna xanuun yar oo hargab laga baqaya caalamka oo dhan maanta hargab uu ka baqaya hargab macaasidi baa meel walba taalla dulmigii zinadii fujuurkii fisqigii gaalnimadii fasaadkii baa adduunka oo dhan maanta saameeyey la odhan maayo cadho ilaahay baa soo socotee oo la qayli maayo la dhawaaqi maayo la ooyi maaye bal waxaa laga baqayaa xanuunkaa yar baa adduunka oo dhan gaadhaye aqalladiina isku xidha oo mamoodku maaqal buu kugu dayn aynamaa takuunuu yudrikkum almawtu walaw kuntum fii buruujin mushayada meeshaad doontaba ku jir mawdku isagaa kuu soo galayaba kaama hadhayaba lagama baxsado nabiyullaahi daawuud calayhi salaam oo habeenada ka mid aqalkiisa dhex jooga ayuu arkay nin daaradda dhex socda markaasuu yidhi war aqalka halkeed ka soo gashay xurdawaaniga soo galay dhex jooga yaa kuu idmay wuxuu yidhi malaha ima garanaysa isku kay sheeg boqorradu aqallada ay samaysteen ee ciidamadu ay dhigteen ka bilaa fasaxa ku soo galaan ahay buu yidhi anigu markaasuu yidhi waan ku gartay buu yidhi waa malaka almowt nacam ma ziyaaradii igu timiday buu yidhi mise amar baad sidaa inaad nafta iga qabato maya amar baa sidaa oo saacaddii baa kaa dhammaatay weliba waxaa lay siiyey khiyaar sii nebiyada dhimashadoodu waa khiyaar weeyaan waa khiyaar isaga siiyo nebi daawuud hadduu doono adduunyada ka soo qaad hadduu doonana adduunyada u daaha iska jooge markaasuu yidhi masaasa ahaa la kulanka ilaahay waan jecelahay nafta iga qaad buu ka yidhi la kulanka ilaahay mu'minku uu jecel yahay man axabba liqaa'a allahi kariha allahu liqaa'ahu أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ومنك إلهي بو جعل يهي عملك إلهي والله ارتقى بو جعل يهي عملك آخرين كبت بادي بو جعل يهي
maadaama mu'minku ilaahayna kulankiisa uu jecel yahay camalkii aakhirada badbaadinayana uu jecel yahay ilaahayna addoonka alla kulankiisa hadhowtoola waa jecel yahay waa dhimanaysa ayaan lagugu cabsiin dhimashada waa u dhalatayba warma inaad noolaataa u dhalatay mase inaad dhimato bal ninkiina inaad dhintaan u dhisho gacanta taag khalaas limaada takhaaf limaada dadka dhimashada ka baqaya muslimka maaha la dooni maayo muslimku dhimasho ka baqo isku aragtimada haba muslimka iyo gaalka ilmaheena yara 5 jirka iyo 50 jirka isku aragti maaha 5 jirkeena haddaad ku tiraahdo ayaa ku abuuray waxaa koran ilaahay baa abuuray 5 jirkeena haddaad ku tiraahdo ma dhiman mise waa noolaan waan dhimanayaa oo markaad dhimato xaggee tagaysaa aakhiraan tagayaa buu ku odhan soo sidaa maaha nin 50 jiran maalin dacwo siiye nin caddaana markaasuu yidhi waxaan aad ka hadlaysa ma fahmayo buui markaasaa yidhi bal u soo gaabiyo waxaa yidhi ayaa ku abuuray adiga wuxuu yidhi hooyaday baa dhashay buui ayaa dhalay markaasaa ku yidhi hooyadaana ayaa dhalay hooyadaana ayaa abuuray markaasuu yidhi hooyadayna habaruunbaa dhashay waa nin 50 jira warkiisii wuxuu dhaafi waayey ani habar baa i dhashay habartaana habar baa dhashay markaas ma dhiman mise waa noolaan markaasuu waan dhiman dhimashada kadib xaggee tegi ma garanayo meelaan tagayo aabbahayna iima sheegin hooyadayna iima sheegin jaamacadahana layguma dhigin buu dhimashada wax ka dambeeya 50 jir kooga 5 jirkeena ka mustawa sare hadday muslimiintu wax fahmayaan 5 jirkeena 5 jirkeenu meeshuu ka yimid uu yaqaanaa meeshuu u socduu yaqaanaa allihii keenay buu yaqaanaa ujeedada loo keenay buu yaqaanaa waa haddii 5 jirkeenu uu helo tarbiya sax marka adduunyadan ilaahay baa iska leh ilaahay baa isagaa ka taliya isbeddelka ilaahay baa keena kii ilaahay cizeeyana cid ma dullayn karto kii ilaahay hoos u dhigana cid ma kor u qaadi kari mayso kii ilaahay nolosha uu qadaro cid ma dili karayso haddaad tidhaahdeen makhluuq baa wax dilaya sifaadkii ilaahay lahaa ayaad makhluuq u nisbaysa almuxyi waa kuma almuxyi waa kuma almumiitu waa kuma alcaliim waa hayo alkhabiir waa hayo alsamiic waa kuma albasiir waa kuma sifaadka ilaahay baa le cid kale ha u sheegin sifaadka ilaahay u daa walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu bihaa sifaadkan 99 magaca ilaahay magac kasti macno cajiib u leeyahay macno cajiib u leeyahay magac walba macnuu ku fadhiya marka sifaadka ilaahay uu leeyahay makhluuq ha u nisbayn ka wax dilo waa ilaahay ka wax nooleeya waa ilaahay ka arsaaqada bixiya waa ilaahay ka amniga keena waa ilaahay ka amniga markuu doono rafacana waa ilaahay meeshuu doono amni ka dhigayaa meeshuu doonana ilaahay waxuu ka dhigaa cabsibu ku ridaa amarka isagaa leh ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدح بقل الصنو أيو يروح سمينا يا جنة يا دويدة صدح بقل الصنو الذي سيالي لمقالة داس نبي huud baa uga warramay maaragtaanay jannada markaasuu yidhi anaa jannadii adduunyada ku samayn waxaa la yidhi 120,000 oo muhandis magaalada 120,000 oo injineer ay ka shaqaynayso imisaa shaqaale ka hoos shaqaynaya 120,000 oo injineer qusuur
qasriga ka qurux badan adduunyada ayaa laga dhisay